السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتا بدن ميل كستا جوجتان عافيماد تاما ayaan idin rajaynayaa. Ninkan waxa uu leeyahay commentiga ayuu su'aal ku soo qoray. Su'aashaas ayaynu insha Allah muuqaalkan kaga jawaabaynaa. Waxaan maqlay dumarku inay ku naaxaan biyaha ragga. Arrintaasi ma waxba ka jira? Dabcan waa fikir dad badan ay aaminsan yihiin haweenku marka ay guursadaan inay quruxaystaan, inay naaxaan ama ay cayilaan oo ay buurtaan, inay awoodaystaan, inay dabeecad fiicnaadaan, in isbedel weyn uu ku dhaco. Su'aashu intaaba way aaminsan yihiin bulshadeena qayb ka mid ah. Laakiin haddaynu jawaabta uun ku soo dhawaano, haweenaydu nafsad ahaan way u fiicnaataa marka la guursado. Guurku sidiisaba waa raxmad, waana deganaansho iyo xasilooni, waana wax labada qofba ay ku nafisaan. Dhinaca saynis ahaan, haweenayda marka gogol lala sameeyo ee ay isbedel ku dhaco, isbedelkaas jirkeeda wuu saameeyaa. Waxa isbedela qaabka cuntada u cunaysay iyo sidii markaa amateedkeedu ahaa iyo nafsadii ay ahayd. Sidoo kale waxa isbedela wixii loo oran jiray self care-ka ama self respect-ga ama self worth iyo self value. Waxaas oo dhan baa isbedela. Qofku naftiisa sidii uu ixtiraamayay iyo siduu naftiisa u jeclaanayay iyo kalsoonidii nafta iyo qiimihii nafta, waxaas oo dhan baa isbedela. Marka haweenaydu maadaama oo ay nin u timi, nafsad ahaan iyo caafimaad ahaan iyo jidh ahaanna way isku bedelaysaa oo hormoonadeedii jidhka ayaa falgalaya, isla markaana niyad ahaanna way isku bedelaysaa. Sidoo kale haweenaydu caring bay samaynaysaa oo iyadaa self caring samaynaysa oo nafteeda xanaanaynaysa ama nafaqaynaysa oo waqti fiican gelinaysa. Taasi waxay keentaa dhammaan kuwaasoo dhan aynu tilmaamnay waxay keenaan haweenaydu inay isbedesho markaas, inay quruxaysato iyo inay qof faraxsan noqoto iyo inay qof xarago badan noqoto iyo in markaa xataa jidhkeediiba inkastoo nolosha ay ku xidhan tahay lamaanuhu ay ku jiraan iyo markaa haweenayda qaabka guriga loo diyaar garoobay in markaa lamaanuhu ay isku yimaadaan dhaqaale ahaan iyo sida ay yihiin, haddana isbedel baa ku yimaada jidh ahaanna way isbedeshaa. Mararka qaar waxaa dhacda inay marka habeenka koowaad ama habeenka labaad ama markaa wiiga koowaadba hadday uur qaato oo ilma caloosheeda kale cuntada ay ka go'do, in markaas ay waxoogaa ay dhuubato ama ay caatowdo. Intaas ayaynu ku soo ururaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.